هذا شغل برنامج كاوستاجي فريسو آدم شغل برنامج كاوستاجي نفريس إذا كان فديا خلي كتان هذا يبصير إلى الله فديا أو يستاجي شغلها وأنا بقف 6 قف 4 قف أنا سمعنا يسوق يسمع قالوا مسؤولين على الغالب تلنا كفوي ضوء فريسو مسؤولين على الغالب تلنا كفوي محارب طائنا دفاع محارب دوران كل شيء فريسو أجندة أمام السيد فريستا كدوديستا ملانا يا حلوانا هاي سورة حلوانا هاي سورة هنا الجيمو أو تجينا يا ولد إيه gudoomiyaha golaha shacabka Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay qaar kamid ah magacyada golaha wasiirada oo kulankii gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa magacaabay qaar kamid ah wasiirada kulanka maanta is-hortaag ku sameeyay waxaa la fujiyay qaar kamid ah mikrofoonadii xildhibaanada waxay ku fashilantay inay qabato shaqadii ودورشودا وعرفنا وقت كالسؤال كلا نوشنا إلى أقارنا إنت أفضل baarlamaanka Soomaaliya ayaa codka kalsoonida u qaaday xukuumadda golaha shacabka iyadoo gudoomiyuhuna uu cod galiyay in xukuumadda lagala noqdo dhammaan inta badan xildhibaanada ayaa gacanta u taagay in xukuumadda ay ku fashilantay codkii kalsoonida ay siiyeen gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku dhawaaqay codka natiijada wuxuu sheegay in codkii kalsoonida lagala laabtay xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre cod la geliyay oo gacantaag ahaa ayaa lagala laabtay waxaana kulankii halka ku soo dhamaaday qaar kamid ah xildhibaanada oo golaha wasiirada ayaa isku ku sameeyay laakiin gudoomiyaha ayaa cod galiyay arinta kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyadoo inta badan xildhibaanada goobta joogana ay gacanta u taageen in xukuumadda ay ku fashilantay codkii kalsoonida oo ay shalay siiyeen mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hadda waxaa soconaya oo goobta isaga baxay gudoonka golaha shacabka kadib markii codka natiijada uu ku sheegay in xukuumaddii ka codka kalsoonida lagala laabtay maanta golaha shacabka xaaladiisu waa sidaas wali waxaan nagala socotaan daawadayaal xarunta hoolka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya cod loo qaaday oo gudoomiyaha golaha shacabka uu galiyay codka kalsoonida halkaas waxaa codka kalsoonida lagala laabtay sida gudoomiyuhu uu ku dhawaaqay codka natiijada xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kulankii wuu soo xiray sidaad arkaysaan hoolka gorta
هنا مدن حل بان مانتا واللايف جوبجوج وixii maanta golaha shacabka ka dhacay codkii la galiyay way hay waa qaar kamid ah xildhibaanada ayaa mikrofoonka la xaqadaya xildhibaan Xuseen Idow waa goobjoog wixii maanta dhacay iyo bal sida u aragtay kulankiisii xildhibaano gadoodsan ayaa ajandaha ilaa saxiyo diiday ajandihii oo laga oo aan la furin ayuu guddoomiyuhu halkaas soo istaagay oo yiri xildhibaanada fariista xildhibaanaduna waa buuqeen waxay yiraahdeen aan wada hadalno xafiiska nagee isaguna markii dambe wuxuu yiri xukuumadda waa dhacdona marka simbal shirki oo furmin ayuu wuxuu yiri xukuumadda dhacday way waa xildhibaan Xuseen Idow oo kamid ah xildhibaanadii golaha shacabka hadda waxaa shir jiraad qabanaya wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya bal shirkiisa jiraa'id iyo ayaan goordhow ku duwi doonaa oo ka hadli doonaa wixii dhacay wasiirka amniga ayaa shir jiraad qaban raba qaar kamid ah xildhibaanada ayaa sidoo kale ka hadlaya gaar ahaan xildhibaanada wasiirada ahaa sidii wax u dhaceen maanta waxaan goordhow ku duwi doonaa qaar kamid ah xildhibaanada oo aan mid ula hadli doono hadda waxaa shir jiraad qabanaya wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم waxaan rabaa halkaa inaan shir jira ku qabto aan kaga hadlo maanta wixii ka dhacay golaha shacabka saa ugu socotaan ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay halkan waxaan ku qoray ajandaha maanta ka doodista doorashooyinka ku qoran annaga waxaan helnay in guddoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yiraahdaan xukuumadda way dhacday taasaa maanta halkan u taagnaan ka doodaynay waxaana guddoomiye aan kula hadalno aan fadhiisano ajandaha noo sheeg doorashooyinka wuxuu ku saabsan yahay waa ajanda aan oo wuxuu soo qoro falska ah oo aan waxba ka jirin markan ajandihii aan dhahnagala hadal guddoomiyuhu naga dhaga adeegay wuxuu alla qadar waxaana sharciga waddanka ama adduunyada aan ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo kamid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda mooshin laga keenin oo wax cadeen lagu helin in xukuumaddu waa dhacday yiraahdo waxa uu fiicnaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay gurigooda iska jiiftaan waa dhacday yiraahdo marka hadda waxaa marqaati ka kaamirooyinka ay joogeen ee live la galay xukuumaddu waa dhacday oo dhahay ana mooshin laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin oo xukuumadda marka la eeday inay isdifaacin inuu guddoomiyaha maanta waa aragtay aayadaha quraanka marka lagu furo hadalka ku xigay waxay inuu yiraahdo xukuumaddu waa dhacday marka taas waxaan ogsoonahay in ay qaran dumis uu yahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka marka ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay inay u jeedaan waxaan annaga mar walba xukuumad ahaan aan leenahay aan sheegnay wasaarahan uu sheegay in doorashooyinka waqtigeeda ay ku dhacaan sababtoo anaga wasiir amni ahaan xil ay iga saaran dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan in doorashooyinka waqtigooda loo qabto in doorashooyinka aan waqtiga loogu talagalay 8 February madaxweynaha la doorto waa dhici kartaa wixii la doono farsamo waa la aadi karaa wixii technical ah dilayt technical duuma waag Sheekh Shariif oo yimaad madaxweyne hor Sheekh Shariif xasan Sheekh labada bixlabaan ahay waqtiga dib ay ku dhacdo waxba laga ma qabo laakiin laba sano extension la qaadaha marka waxaan ka dhidinay waxaan u shaqeynaa ummadda Soomaaliyeed aan nahay anaga wasiirna uma jirnin laakiin waxaan rabnaa wax xaq ummadana helaan dalkan waa inuu doorasho aadaa doorashadu waa taasaan laga shaqeynaa waqtiga loogu talagalay doorasho aad doon hadii Ilaahay yiraahdo qofkii ku taamay in 2 sano ku darsada sida maanta xukuumadda ay ka dhiman tahay 3 bil 4 bil gudaheeda
حكومة الرد حكومة على صوت لسه تاسورتي من مك فكرة وحنلاها إيمانك إلى كل شيء ما دعيسو ما ندعي دونتو وأنا ما أستنى السلام عليكم مدن وزير اكستيشن كواعدة وضياء وايو بدونك برلمان كاود بدونك برلمان كاود اكستيشن قلاه شعب كاودو بدونك أنه هرمود كأه تاسنا دعي ميسو دل كان دورشو آلا وقت لو تلاقون دورشو كآلا دورشو نسي وضع أقله إن دولة قبلية وبنتك دولة فدرالك دولة فدرالك وحلقة ربع دل كان دورشينو آلا marka gudoonku waxaan leeyahay maanta nasiir daro way wax taariikhda baalmadow ka gala way in ayadoo hal xilbaan hadna ayadoo ajandaha uu ku jirin xukuumadda xilka noqoshada ayadoo intaas lahayn inuu yiraahdo gudoonka xukuumadda cod u qaado waa wax la yaabo xilbaana kale ay qadameyn doonto waana mahadsantihiin laakiin xilbaan saad wasiir maxaad u doodi weyseen oo aragtidiina waxaad qabtaan maadaama uu gudoonka ogolaa maxaad hor istaagteen golaha hortooda waxaan ogaa dooda hadii la furnayn saana ku dhamaaleed door halkan waxa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dhacdo kuma dhigin intaan uu rabay marka waxaan anaga u doodeynay aan doodanay head inuu warkiis toos u yiraahdo oo alla ma hadis waxaan ka filayno toos u yiri marka intaan leeyahay marka anaga inaan qaldan ha ogaadaan sharciga hogaansanahay waxaan u doodeynay intaas ee tii inuu yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummadda Soomaaliyeed inay dib u noqoto marnaba إنه هرا الله صعد على الرباع إن شاء الله بإذن الله كريم وحنك شغلنا دلكم دورش شيء وآد لهن سي إن ومد الصومالي كل سنة أفر سنة كستنا وحاكنا عند دلكم لبضكم إلا يحد أفر سنة كست دورشاك دعو دورشات عيسى بإذن الله كريم. لكن حكومة وكستيشن ما أقوله. كستيشن ما أقوله حكومة هرنا وزارة وشهادة وكل علنا حكومة ما أقوله حكومة حتى على غير ما أقوله كستيشن دورشات عيسى دورشات كل عيسى madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaanka si kala doorasho hal qof hal cod ma dhici karto guddiga doorashooyinka halkan ay timid xaliyay waxayna tiri gudoomiyaha doorasho waxa u baahan waqtigana ma cad sax ka bil sheegatay 9 bil wax cad male qalabka diyaar ma ahan marka taas mar inuu gudaha sii galo waa mahadsantihiin kaasina daawadayaal wuxuu ahaa wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo ka warramay wixii maanta golaha ka dhacay ila jooga sidoo kale hadda waxa sirjada qaban raba oo warbaahinta isugu yeeray xafiiskiisa xarunta golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka oo ku dhawaaqi doona sida howlwadanada inoo xaqiijiyeen kulankii iyo natiijadii codkii la qaaday ayuu gudoomiyuhu ku dhawaaqi doona xafiiskiisa ayaa warbaahinta loogu yeeray nala jooga xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta halkan gudoomiyuhu cod u galiyay kadib markii sida uu sheegay gudoomiyuhu ay xukuumaddu ku fashilatay dhammaan wixii loo egmaday ee doorasho dalkan inay ka qabsoonto iyo howlo kale intaas kadib waxaa bilowday buuq ay sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya waxaan ku sii jeednaa xarunta golaha shacabka gudoomiyuhu uu ka leeyahay iyadoo warbaahintana ugu yeeray hadda waxaan ku soconaa xarunta gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya حلمانات كلها كيف Please leave them. Okay, thank you. لبيه اليوم ما نجحت كان صاحب يلا اليوم والله تحيه والله
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqaya natiijada codbixinta كيجي أوي أنا كيجي أوي أنا كيجي هو كان في قناة أسكلا كيجي هو كم لو ميكروفون راديو وين هيا حقك بدارو بدار خمك بقول أنا ما يقدمون برنامج النتيجة كواقع وقصدوا كذا كبرياء كذا وسمعنا نعم 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 كل ما صحي وعادي بسم الله guddoonka markuu arkay qodobka 69aad faqradda labaad xarafkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta eedaha dawladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 dhamaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti u qaadida iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dawlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ergelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54aad sharciga doorashooyinka qaranka
warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13aad faqradda 3aad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantihiin golaha shacabka ayaa shirkiisii jira id soo gabagabeeyey goorno sidoo kale waxaan aadi doonaa qaar ka mid ah xildhibaanada kale ee bannaanka jooga goobjoog ila jooga xogtu way badan tahay mudanayaasha kale ee golaha shacabka ayaan aragtidooda wax ka weydiin doonaa aniga maya nin hadiga oo dhan baa ka qaaday ka wareegsan sababtoo bogsiyay abuure oo ka warramay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa xarunta ka baxay isagoo hoygiisa u dhaqaaqay qaar ka mid ah xildhibaanada ayaan isku dayi doonaa xildhibaan cilmi waa layf waa goobjoog bal maanta wixii dhacay sida u aragtay waayahay qaar ka mid ah xildhibaanada way ka gaabsanayaan aragtidooda ku aadan wixii dhacay xildhibaan Mustafa Dhuxulow ayaan rabaa inaan aragtidiisa wax ka weydiiyo iyo xildhibaanada kale daawadayaal xildhibaanada ayaan weli la sii hadlaynaa inagoo isku dayi doona aragtiyaha xildhibaanada ay ka qabaan wixii maanta halkaa ka dhacay lagu sheegay codkii la qaaday in codka kalsoonida lagala laabtay xukuumadda uu hogaamiyey ra'iisul wasaare xasan cali khayre kulanka hor inta soo bilaabanaya qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya waxay is-hortaag ku sameeyeen furitaanka kulanka iyagoo sheegay inay ka war heleen arrintan iyo qaadista qaarkood waxay jajabiyeen microfoonadii loogu talagalay in xildhibaanadu ay ku doodaan marka golaha shacabka xarunta la joogo
wasiirka marka qaar ka mid ayaan isku dayi doonaa in xildhibaanada aragtidooda aan ka weydiino wixii halkan maanta ka dhacay. أحمدو مرة سوق هذا نسان. أنا بقول يا هذه وريد الزارع جداد قبل هو واقع عبد الله عشوري يا شو ذا ورا هذيك مرة صباح يا صباح مرة صباح قبل ما ماشي جدي فيرد سكوب بحنا يوصل برلمان كان جدا واحد. أريه ما تودي لي سيلي. كمان وحي ما طبعا خليك وهاي كان صاحب يوسف المفروض هذا وزير كابنيغا يا ولي اوكي ما شو اللي صدق هذا